khaldun wiil tusaale wax malaayiin small youtubers content creators badan waxay aaminsan yihiin in YouTube uu yahay yaar qaadanayso waqti fara badan bilooyin iyo sanado aad u badan aad u baahan tahay si aad ugu guuleysato laakiin maanta waxaan buriskeyga ama hamarkeyga u haystaa inaan jijibiyo fikirkaas aad aaminsaneyd sanadadii la soo dhaafay ama aniga aan aaminsanaan jiray sanadadii la soo dhaafay so videogan maanta waa ku wadaagi doona proof ama cadeyn small youtubers oo gaaray kumanaan subscribers sidoo kalena channelkooda monetizable ah waliba 3 bilood iyo waxa ka yar wiilkaan waxa lagu magacaabaa khaldun YouTube channelkiisa waxa uu sameeyay 4 months ka hor amaba 3 bilood ayuu YouTube-kiisa uu sameeysan yahay haddana YouTube-kiisa waxa ku hiran in ka badan 6300 oo subscribers sidoo kalena channelkiisa hadda monetizable waana waxa YouTube-kiisa uu ku jira ku dhowaad 3 bilood oo kaliya anigana waxaan aaminsanaan jiray sanadadii la soo dhaafay YouTuberiska guuleysta inay u baahan yihiin sanado ama bilooyin aad u badan si ay u guuleystaan ama YouTube-kooda ay meel u gaaraan laakiin fikirkaas maanta waxaan rabaa inaan halkan kugu jibiyo kuna tusiyo analyze-ka wiilkaan iyo waxyaabaha aad u baahan tahay si aad u noqoto YouTuber guuleysta saaxiib marka ugu horeyso waa rabaa inaad bedelo mindset-ka oo ah inaad ka cabsato inaad wax bilowdo ama aad barbar dhigto naftaada qof kale ama hada wiilkaan oo kale aan ku sheegayo oo kale khaldun 2021kii waxa uu sameeyay YouTube channel laakiin YouTube-kaas unfortunately waa uu ku fail garoobay ama YouTube-kaas aad ilaa ka soo gaartay sidaas uu ku waayay YouTube-kiisa laakiin Mark Zuckerberg waxa uu yiri The greatest success comes from having the freedom to fail. When you don't have freedom to take your ideas and turn it into a historic enterprise, we all lose. Facebook wasn't the first thing I built. Marka wiilkaasi isla waxa uu maray isla jidkii uu maray Mark Zuckerberg. Because of Mark Zuckerberg waxa uu sheegay in Facebook aanu ahayn wixii ugu horeeyay uu sameeyay. Sidoo kalena wiilkaan khaldun YouTube channel-kan uu hadda wado ma aha wixii ugu horeeyay uu sameeyay so marka guusha ugu weyn waxa waa inaan haysano huriyad aan ku guul dareysan karno horta waa inaan haysato huriyad aan ku guul dareysan karto views laan dib ma laha subscribers laan dib ma laha sidoo kale camera iyo microphone laan dib ma laha waa inaan haysato freedom aad ku guul dareysan karto waa inaa wixii aad isku dayday ku guul dareysan karto way ka mid tahay guusha ugu weyn taada kale hadhihin qofkan waxa uu haystaa kumanaan subscribers aniga way u heli waaye because ninkan waqti uu soo geliyay adigana waxa laga rabaa ina waqti geliso because of waxay dhahan don't compare your chapter 1 to someone else's chapter 14 adigoo hadda biloway naftaada ha barbar dhigan qof waqti hore soo bilaay soo jabay so marka aad bilow tahay everything oo ku saabsan views subscribers intaas oo dhan ha ka welwelin just videoga ugu horeyso soo dhig hata video ugu horeey waxa ka dhigtaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waan idin salaamay dhammaan asxaabta waxa ka mid noqday YouTubers ama waxa dhahda YouTube channel ayaa sameystay isoo subscribe garay bas videoga ugu horeeyo intaas ka soo dhig hada waxa dhahda magacaygu waxa la dhahaa hebel YouTube ayaa ku soo biiray wassalaamu alaykum intaas laga rabaa videoga ugu horeey marka inta ka soo dhigto waxaad bilowdi doontaa inaad dareento kalsooni oo kale inaad isdhahdo wow marka videoga ugu horeey soo dhigto isla markiiba waxa bilowdi doontaa inaad ka fikirto videoga labaad ama video kale raadiso videoga ugu horeey looma baahano inaad dhahdo ina value soo gudbiyo maba bilaawin ba goorma ka fikiraysa horta value everything waxay leeyihiin foundation marka qof waliba hoos ku soo bilaawa markaas waay so aan u soo laabano wiilkaan khaldun waxa ka dhigay guuleyste first thing waxa waay oo aan ku amaani doono wiilkaas waxa waay consistency is the key to success marka wiilkaasi waxyaabaha ugu badan uu sameyn jiray waxa waay inuu isbuuci video soo dhigi jiray ama isbuuci 2 videos ama 1 video uu soo dhigi jiray marka consistency-ga waa ka muhiimsan mala meeshan YouTube waxa ka shaqeeyo
algorithms oo lagu bixiyay millions of dollars. So algorithmkaas waxa uu reward siiyaa ama uu abaalmariyaa dadka consistency-ga ah. For example, haddii aad tahay YouTuber 1 week aana video soo dhigin, videoskaaga viewskooga, subscriberskooga, dhammaan performance-ki videoski oo dhammaa way istaagi doonaan because of meeshan algorithms ka shaqeeyo. oo marka video soo dhigto oo active tahay algorithmska way ku reward gareeyaan ama way ku abaalmariyaan. So wiilkaan waxa ugu muhiimsan oo laga helay waxa waaye consistency, inuu maalin walba video soo dhigi jiray uuna samaystay system. teeda kale marka laga yimaado consistency-ga iyo value-ga uu soo gudbin jiray, waxyaabaha uu guushan ku gaaray waxa waaye inuu soo gudbin jiray videos token head ah ama aan faceless ahayn. Because marka face-kaaga uu yahay iyo marka faceless aad tahay isku mid ma aha. dadkuna marka ay face-kaaga arkaan iyo marka ay codkaaga maqlaan isku mid ma aha. dadka inta badan way subscribe gareen ama iraa'aan wajiga ama dadka sida aadiga u soo horfidhiso. laakiin sida aan ku dhahay faceless micnaheedu maaha in faceless boqolkiiba boqol uu ka hun yahay face-ka. Because of waxaan halkan kugu hayaa sidoo kale proof wiil lagu magacaabo media waa nin saaxiibkay ah. wiilkaan YouTube-kiisa waxa ku jira mudo 9 months ah, laakiin videoskiisa ugu performance-ga fiican ama channelkiisa growth-kiisa waxa uu bilowday adiga 2 months ka hor. wiilkaan waxa uu 1k gaaray adiga ku dhowaad 4 weeks maya 3 weeks 1k gaaray, haddana 3 weeks ka hor buu 1k gaaray, haddana waxa uu haystaa ku dhowaad 2.1k subscribers, ku dhowaad 2,000 oo subscribers. So taas waxay ka dhigan tahay in faceless aanu ahayn kan ugu hun ama boqolkiiba boqol token head ama with face-ka aanu ka humayn. waxa ugu muhiimsan waxa waaye value-ga iyo consistency. wiilkaan media isbuucii 2 video ama 1 video buu soo dhigi jiray isagana. So algorithm-ka waxa uu abaalmariyaa dadka consistency-ga ah dhammaantooda. hadda wiilkaasi YouTube waa uu monetize gareeyay ama YouTube partner programka waxa uu soo diray fariin ah inuu ka mid noqon karo ama apply gareyn karo Google AdSense. laakiin waxa ugu dhiman wax yar adiga watch hour-ka ba wax yar ugu dhiman. So YouTube marka hadiiba aad ay ka tahay serious ka tahay oo ma baahnid camera, microphone, dhammaan waxaad u baahan tahay boring strategy waliba oo aad videoga ugu hun marka hore aad soo dhigto, and then consistency iyo dhammaan waxyaabahaas aad channelka ku apply gareyso, and then you will win. teeda kale yesterday waxaan arkay wiil Soomaali joogo waxa uu dhahay YouTube waa samaystay ama YouTuber waa ahay, laakiin walwalka ugu badan waa igu hayo waa Google AdSense ama marka aan buuhiyo shuruudaha oo dhan meesha aan ku apply gareyn lahaa ba walwalka ugu badan igu hayo. So taas dhammaanteednaba wayn haysataa, don't worry about it. taas marka shuruudaha dhammaantood aad buuhiso maybe waa heli kartaa, laga yaabaa inaad hesho qof meelahaas ku joogo oo kale. meelahaas adiga wadan adiga ka baxsan Soomaaliya waa heli kartaa. So wiilkaas waxaa leeyahay fikirkaas marka hore soo hir because of marka shuruudaha buuhiso waaye. shuruudaha marka buuhiso laga yaabaa inaad hesho ama ba waxaad heli kartaa qof saaxiibka ah ama istagaanin qof meeshaas u jiro adresskiisa iyo waxyaabahaas aad hesho, kadibna pioneer-kaaga waa samaysan kartaa, baasaboorka ay alaabaha waa ku hiran kartaa, kadibna pioneer bank account meeshaas ku samaysan kartaa. sidaas waaye marka walwalkaas iska daa. first of all shuruudaha buuyi markaas isku soo laabano. because of taas way ka mid tahay sababaha ay small YouTuberska u quit gareeyaan ama iska joojiyaan YouTube-ka. markaad ka fikirto waxyaabo kale oo internal ah ka baxsan YouTube-kaaga ama meelahaas waxyaaba ugu badan bay tahay oo ka joojiyo YouTube. So first of all videos badan soo dhigo, marka shuruuda buuhiso, kadib waxyaabahaas markaas raaso. laakiin YouTube ha quit gareynin adigoona marka horeba bilowin. So halkan waxaa kusoo gudbiyaa YouTube growth tips. haddaad nagu cusub tahay waxaa ka codsan lahaa inaad channelka soo subscribe gareyso, commentigan iigu soo qorto wixii talo ah. Peace.